mahadhaafaha wanaaga dhisaha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhawta allow dhowr Somaliland allow dhowr kulanti oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ah oo aan idiga diyaarinay xisbiga mucaaradka ah wadani oo maanta munaasabad aad u ballaaran u sameeyay siyaasiyiin xilal uga soo qabtay xukuumaddan haata talada haysa oo maanta ku soo biiray kuwaasi oo isugu jiray wasiiro maareeyayaal barasaabo agaasimeyaal iyo xildhibaano barnaamijkiina sidan tan ayuu dhacay daawasho wacan waxaynu halkan ka xaadirin doonaa mid ku xaadirin doonaa madaxda qiimaha leh ee ka soo digarrabatay xisbiga kulmiye waxaynu leenahay sida boorka ka akhriyaysaan waa isbeddeldoonkii kulmiye booba yuusuf tacaali dee waa wasiirkiina warfaafinta ugu dambeeyey wacyigelinta afhayeenkii rasmiga ah dowladda maxamed nuur carraana dur waa wasiirkii arrimaha gudaha cali cilmi geelle waa wasiirkii boosa آدم أحمد ورسمة ووزيركي حرير كقولياشة حسين حوها وزيركي حافظاتك وعلي أحمد عبدي على عنتر وزيركي هو وزير دولي waxaa ku jira Jamaal Hurre waa gudoomiye gobolka Daamareed waa Axmed Cabdilaahi Xaaj Xasan waa xamartee waa gudoomiye gobolka Madowlija iyo Togdheer ولي أحمد حاو وماري ورشد الليلة وحاكو حقا ديق حرسي عنقول وحبيي دولة ووسيح أنكو حكسيو أحمد علمي رواقا سمي كودي وزارة الدفن الشتة عبد الكريم باطي أقوليها عن عبد الكريم وحاكو شراه فؤاد محله وحوها مضحف في دورك عينك اسلوب توحيد كان ويسك عسلي عبد السلام شيخ محمود اخوياها كذا ير waxa ku jira Abdi Hussein Maraykan oo aan maleeyo inuu yahay maqanayaasha laakiin dadka xisbiga ku soo biiray waxa ku jirta Samsam Mohamed Bihi oo Somaliland Association waxaan idinka codsanayaa inaynu in yar isdhegaysano daqiiqado kooban baa la siiyay qolooyinka hadlaya hadalka ha joojiyaan bismillaahi raxmaani raxiim uma aan holan inaan hadal dheer madashan bilan ka jeediyo waxaan u soo kacay inaan wax sidaa u sii dheerayn iftiimiyo marka hore waxaan halkan ka caddaynayaa inaan u soo digarroynay xisbigan waddaniga annaga oo badan oo sidaa dan moodnay waxaannu nahay isbeddel doon wuu badan yahay isbeddelkuye waxaannu uga jeednaa isbeddel togan oo caafimaad qaba oo dal iyo dadba la mahadiyo sidaa ayaannu isbeddel doon ku nahay waxa kale oo aannu ka sii nahay haakahma sugtadaannu nahay annagu waxaannu nahay haakahma sugtada go'aansatay inaan mar dambe laga qaniinin god hore looga qaniinay waxaannu ka soo hor jeednaa
oo aanu ka duwannahay oo aanu ka gedisannahay haaka sugtadaannu ka duwannahay annagu waxa kale oo waxaannu nahay dad ka khatoobay filimada la soo celceliyo ee sidii kartoonnada qaarkood musalsalka aan dhammaanayn laga dhigay ee indhihii iyo dhegihiiba ka daaleen maanta waxaa la odhanayaa madaxweynuhu wuu sharaxan yahay dabeedna 3 madax baa la waayayaa berrita waxaa la odhanayaa ma sharaxna dabeedna 3 madax baa mudh soo odhanaya maxaa annagana keenay xisbiga waddani hadda raalli ahaadoo in yaraan isdhegaysanno waxaannu u nimid inaannu idinla wadaagno dadaalka iyo hawlaha la xidhiidha adkaynta nabadda horumarinta dalka hirgelinta geedisocodka dimuqraadiyadda dhowridda iyo xurmaynta xorriyadda saxaafadda ilaalinta iyo dhowridda guulihii halgankii humaysnaa iyo ololayaashii isdaba joog ee la xaqiijinayey tan iyo 1991 waxaannu idinku nimid inaannu xisbiga waddani u adeegsanno xaqiijinta himilooyinka qaran ee dal iyo dadba danta u ah waxaannu idinku nimid inaannu xisbiga waddani ku wadaagno dareemmada togan ee daljacaylka iyo daljacaylkaba ah waxaannu idinku nimid inaynu la dagaalanno qabyaaladda dadka iyo dalkaba lagu shinniyeeyey ee aynu taabka la rogi laanahay waxaannu idinku nimid inaynu wax ka baranno islamarkaana wax ku qaadanno waxyaabaha taban ee nusqaanta leh ee aynu ka aragnay nidaamkan aynaan mahadin ee hoggaaminta xukuumadda maanta dalka ka talisa ee aynu eednay abaalkeenniina xumaanta iyo tacaddiga inooga dhigtay walaalayaal idinkoo raalli ah waxaan jeclahay gabay uu timi cadda tiriyey 1964kii markii la wareejiyey waddankaa la yidhaha NFD gabay uu berigaa tiriyey tudaca ugu dambeeya uu ku soo xidhmayo oo 4 bayda inaan idiin soo qaado wuxuu yidhi raalli ahaada intaana sii guntada oo ku qadeeya maanta wixii dhacayba nimankan ku waday inaynu weyddiinno kol hadday u weysaysato oo weliya loo haysto aniga yaan waxbaynu isu nahay laygu weyrixinne ninka weliba sii eegaya ha uu sheeg maanta halkan maraya waxgarad iyo waayeel aan saaxadda siyaasadeed ku cusbayn waxa maraya dad fikir mideeyey muddana rogrogaayey in laga gudbo biriijka u kala gudbo muxaarad iyo muxaafad ma fududa wuxuu adag yahayna marka xagga mucaaradka loo socda waxaan ku faraxsanay inaan tiimkayagii badqab ku soo wada gudbay aad bay sharaf noogu tahay waxaa halkan marahaya gurmad cudud iyo codba ku biirin kara xisbigay ku soo biireen maanta waxaa marahaya xogagaal iyo waayo aragnimo u baahan in laga faa'iidaysto waxay isweyddiintu tahay maxaa xisbiga waddani oo ugu daayar xisbiyada qaranka maxaa loogu soo digaroganayaa loogu soo guurayaa waxay isweyddiintu tahay maxaa xisbigii weynaa xisbulxaakimkii kulmiyaha iyagii looga soo guurayaa caqligaa isweyddiinaya waxaa la isweyddiinayaa maxaa geeddiga isbeddel doonkaa wakhti hore iyadoon xukuumaddaba wakhtigeedii dhammaan ooda looga rogay waa la isweyddiin waxaan isleeyahay waxbaa maqan waxaasoo dhani waxay ku xidhan yihiin wax maqan bay ku xidhan yihiin waxaan isleeyahay waa guud ahaan waxa maqani waa wax taladeenna ka maqan siyaasaddeenna iyo hoggaaminteenna waxa ka maqan hanaqaadnimo waxa ka maqan koritaan waxa ka maqan awooddii lagu odorosi lahaa mustaqbalka ee lagu soo bandhigi lahaa xal maxaa xisbiyadii udub u dhimatay kumbliyana maanta uu dhuun yeedhinaya isweyddiin baynu u baahanay
waxa maqan inaynu eegno jihada aynu u soconno ee siyaasadeed oo aynu ummadda ku hagno wax saxa geesinimo karti iyo muuqaal dheer fishan sare waxa maqan waxa ummaddu tabayso ee aan weli la gaadhin waxa maqani markaan runta sheego waddanuu dhex yaallaa maanta odhan maayo waddanuu maanta dhex yaallaa odhan maayo waxaase noo muuqatay in waddani la isugu imanayo waxaannu goosannay inaannu talada intayada waayo aragnimada intayada intannu annagu isa sii dheerree boobiya noogu waayo aragsan yihiin inaannu waddani ku biirino maanta waa la isugu imanayaa waddani waa hubaal weyn nin jecel maanta iyo nin diidanba waddanaa la isugu imanaya waayo xalalkii kale iyo xisbiyadii kale ayaa hoos loo dhigay xisbulxaakimkaygii wuxuu ku jiraa fadlan kor u hay cid haysana garan mayno waddanow xal baa markaa la rabaa waddanow xiiq ma rabno ma doonayno berri idinna in soo baxa laydin idhaaho ma doonayno in wakhti hore geediga isbeddeldoonka laydinku istaadho xal baa la rabaa xalku maantuu bannaayey isbeddelka uma arko anugu gaadhista madaxtooyada oo wax fududa waynu gaari karaynaa berrito inuu madaxweyne cusubi madaxweyne kala beddelana wax weyn uma arko waxaan doonaynaa inuu tago madaxweyne barnaamijkiisii alfilaa ya'sita waa laga faa'idi karaa ragga way araggee goobta fadhiya waddani waxaan leeyahay gogasha fidiya oo reer somalilan u fidiya oo dadka mid deeqda fidiya oo fikirka fidiya oo talawadaagga fidiya waxaan leeyahay yaanaynaan ku mashquulin hebelow hebel u jawaab aad bay u liidataa reer hebel u jawaaba yaanaynaan ku mashquulin aynu keenno fikir ka koran dad baa isla madaxweynihii waxtara waxay dhaliilayaan maalinta wasiirka ah xalay bilaabeen oo miyaanu madaxweyneygu ahayn wax ku tara isleeyihin wallaahi waxba tari maayaan maxay tarayaan lama dhaliili karo qofka maanta isla madaxweynaha waxtar shalay wasiir baan ahaa go'aankayga iyo taydaan wasiir ku ahaa gef inaan galay uma arko ilaahay hayga dhaafo haddaan galay laakiin madaxweynuhuna madaxweyneygu ah maanta tiifigii qaranka inay ka socoto in durba dhaliil nalooga dhigo xilkayagii ceeb bay madaxweynaha ku tahay waxaan doonayaa anigu waxaa wax ka korsan baan doonayaa godoloolada jirta ee qarankani leeyahay ha la garab dhigo mid lagaga baxo yaan cayn loo turjumanine waxaasaannu ku beddelaynaa aynu keenno waxaan qabaa inay sharafta qarankani ku jirto qabsoomidda doorashooyinka qaranka ayay sharafta qarankani ku jirtaa ma qabo madaxweynuhu inuu kororhsanaayo waayo madaxweynuhu waa igala sharaf weyn yahay waa igala magac weyn yahay waa igala daa' weyn yahay muddaxileed aan loo doorannin sii fadhiya intaaba uu igala weyn waxaan filayaa inuu doorasho qabanaayo oo miduu ka dhex yahay uu qabanaayo midka uu dhex ka yahay uu qabanaayo ayaan jecelay waxaan u mahadnaqayaa hadalka badan maanta nalama siine koow guurtida ilaa caydaroosh ilaa maanta dabdamiska ah waan u mahadnaqayaa laakiin waxaan isweydiinayaa qoormaynu noqonaynaa qaran sharcigu adeego bal innagay noo tahay ilaa caydaroosh ilaa maanta ayaa la leeyahay xaaji saleebaan iyo xaaji cabdi ha loo yeedho waar goormaynu guurtida ka guuraynaayoo sharcigu inoo shaqaynaya waxaan u mahadnaqayaa laba beelaha galbeedka oo soo gurmado maalintay adag tahay oo tii xildhibaanadu u dambeeyeen waxaan u mahadnaqayaa markaynu qaybsanno ama xisbi ama qolooyin ciidanka qarankeen qaybsamin magacyadiisoo dhan ciidanka sharaf bay leeyihin waddanow yaa laydinka maqlin idinkoo qaar maagaya ciidanku qaranka dalka sharaf bay ku leeyihin ma qaybsamaan magac kasta ciidanka qaranku ha lahaado wuxuu ku shaqeeyaa duruufta ugu qallafsan nimaan war u hayn oo guri nabada ka soo toosay oo aan xaaladdooda dhaqaale iyo noloshooda ogayn ayaa ciidanka qaranka maaga magac kastuu leeyahay
ciidanka qarankana waan u mahadnaqayaa cid kasta oo talada qaranka ku guulaysataana ciidan qaran bay u baahantahay wasalaam taageerayaasheeda waxaanu leenahay waa ciidanka nabadgelyadu cid ma aha sidaa uu guriyey ciidanku waa ciidan booliis ninka booliiska ah marka uu ku dhahdo waa saayeel ogow aduu kuu adeegayahay ciidanku ixtiraam buu naga mudan yahay golayaasha ixtiraam bay naga mudan yihiin guud ahaan muwaadiniinta soomaalida ixtiraam bay naga mudan yihiin waxa weeye hadal iyo dhammaan waxaan leeyahay shacbi weynaha reer Soomaaliyeed waad arkaysaan halkay wuxuu socdaan tareenkii waa dhaqaaqay tareenka dhaqaaqay waa wadani waa mustaqbalka haddaan inuu dibisku hayso hore u skaalay anagu xisbiga kulmiye sida maanta oo kale ay tahay uu kaarkan ugu qoran yahay isbedel doonka kulmiye si la mid ah ayaanu anagoo isbedel doonayna kulmiye ugu biiray ujeeddo kalena maanaan lahayn ujeeddadeedu waxay wixii dalkan iyo dadkan ku hagaagayay inaanu raadino wixii aanu doonaynay ma wada dhicin intii badnaydna ma dhicin dowladnimadu walaalayaal waxay u qaybsantaa laba waa jidh iyo ruux sida dadka oo kale waa jidh iyo ruux walaalayaal jidhkii waxbay kaga qabqabteen ama dee ciidan darajadii ha noqoto amaba lacag imbaaro la bedela ha noqoto ama wasaaradaha dhismayaashooda ha noqoto waxa weeye waa jidhkii ruuxdii siday u dhan tahay meesha way ka maqan tahay miyaana noolaan karaa ruux la'aan ruuxdu maxay tahay haddaba waa hoggaaminta fiican waa dawlad wanaagga waa musuqmaasuq la'aanta waa cadaaladda waa la isla xisaabtanka waa daahfaydnaanta amaba transparency-ga waxaa dawlad wanaagga loo yaqaano waxaad moodaa dawladda inay 90% ka carradantay runta marka la doonayo waxaa la'aanteedna sida naftu markay baxdo jiirku aanu waxba u ahayna la isaga aaso dawladnimadu waxay noqonaysaa iyo qarannimadu wax la aasay waxaa la'aanteed kol haddaan isbeddelkii aanu doonay walaalayaal dhicin waxaanu daba soconnaa sidii aanu u raadin lahayn isbeddelkii halka ay nala noqotay inaanu ka raadiyana waddani buu noqday waxaynu nahay walaal waddan danyara oo dhaqaalo ku filan haysan waxaynu nahay waddan aan ictiraaf haysan markay caynkaa tahay shaqala'aantii baa inugu badan dhallinyaradeenna iyo siday badaha ugu idlaanayaan waa aragtaan waxayna dhiqi kartaa dawlad wadata dhammaan astaamaha dawlad wanaagga ilaa inta la helayana waynu u dagaalamaynaa waynu daydayaynaa waynu u guuraynaynaa waynu u haraadaynaa waynu u soconaynaa waynu u qaylinaynaa waxaan rajaynayaa cabdiraxmaan insha allahu tacaala inuu ku guurayn doono aynu ka heli doono haddaynu se ka heli weyno dagaalku uu soconaya halkan maanta waxaan u ligaa guddileedahay dadka isa soo xushay baan noo qabiilo ku iman waa inta riijada ka koobannaba ama qabiila ka koobannaba ay ka kooban yihiin waxay isku raaceen kalgacayl iyo wanaag iyo wax hagaajiya isku raaceen iskumay raaceen qabiilo oo bay odhan mataqaanaa hebel hebel ah markuu mid walba ka kala arkay inuu fiican yahay ayuu wuxuu qaaday inuu la socdo maanta waxaan leenahay haddaad u fiirsataan ragga meesha isugu yimid nin qabiilo ku yimid ma jiro waa inta riijada laga kooban yahay oo la yahay marka maxaa la isku raacay waxa weeye waa in ummadda Soomaaliland la mideeyo oo mid laga dhigo oo qabiilada laga saaro weeyaan taasi waa muhiimka weyn inta soo jirta marka waxaan leenahay aad iyo aad markaan u fiirsado aniga qaasatan xisbiyadu sida u socdaan ama sida ay u kala talinayaan waxaan gartay xisbiga cusub ee soo koray yaa ugu roobanisilo sidaa daraaddeed baan u soo galoo de saaxiibadii u soo raacan oo la isku soo dhexlo waxaan idiin sheegayaa mid waxaan leeyahay xisbiga waddani midna waxaan leeyahay xukuumaddii aynu dooranay midna waxaan leeyahay shacbiga mid waxaan leeyahay xisbiga waddani waa mahadsantii intiina ola sii shaqaysay intii dambaan naga idinkala wareegaynaa kuwa abshira hadday af noqoto hadday hadal noqoto iyo hadday karti noqotoba
waxaanu idinka ballan qaadaynaa inaanu idinla sino waayo waxaanu nahay xisbiyahan aad iyo aad u yaqaana xisbiga iyo ololaha iyo xisbiyada waa dawarsi waa akhwaan liibaan waxaan isleeyahay cid idinkaga habboon aniga iyo xuseen xoog iyo quuriyo inaanay jirin marka waxaan leeyahay dawarsiga annaga horu soo dawarsan jirnay inkastoonu ku khasaarnay annaga noo dhaafa marka xisbiga waddana waxaan leeyahay dib ha u fadhiistaan kaambeynkii annaga kala wareegaynaa sidaa ha ogaadaan midna waxaan leeyahay xukuumadda maanta jirta axmed maxamed siiraayo walaalkiina uu dhintay waan ka tacseedayna ilaahay sidriya managa siiyo runtii waanu mahadcelinayaa waxaan idiin sheegayaa mudane madaxweyne waxaan kuu sheegayaa maalinta ay gaadho 26 juun wixii ka dambeeya waad garanaysaa haddaad maalinku darsato wixii inoo balan ahaa taana waxaan ka ballan qaadayaa hadday 10 ku dhimanayaan iyo hadday 20 ku dhimanayaanba annagaa kuu codaynay maalintaanu kuu codaynay waynu isla garanaynaa wixii ka dambeeya ilama aha inaad xoog nagaga fadhiin doonto waxaan ku rajo weynahay oo kugu dhiirigelinayaa mudane madaxweyne cid kasta u soo sharaxdo amba adugu soo sharax inaad tartan soo gasho diyaar baanu kuu nahay fooddaanu kaaga helno taana saasaan leeyahay anigu kulmiyo kuma biirin laakiinse waana aasaasayaashiisii baan ka mid ahaa kulmiye waxyaabahaan ka doonaynay may ahayn waxa uu maanta ku shaqaynaya ama uu ku socday waxaa keenay inaannu mucaarad ahaanno muddo badan aannu mucaarad ahayn saluug dawladdii hore ka dhashay ee riyaalo bay ahayd may ahayn nacayb qabiil may ahayn qof jeclaysi may ahayn gobol jeclaysi waayo hadday taa tahay dee ama maanta siiraayo waa adeerkooda kama imaadeen waxay ahayd isbeddel dhaba in la helo waxay ahayd oo ka turjumaya isbeddelkaasoo ka turjumaya baayaheenna ha ahaato mid dimuqraadiyadeed mid xorriyadul qowl ha ahaato mid xuquuqul bini'aadamka ha ahaato waxaad mooddaa wixii aan kulmiye markaannu ahay inaannu aadka uga qaylin jirnay ee ay ka mid ahayd golayaasha qaranku inay kala madax bannaanaadaan maalintii golaha baarlamaanka dawladdii riyaalaha ciidanka duldhigtay raggii ku dagaalamayay baannu ahay ismaan lahayn mana filayn maskaxdaydana may soo gelin kulmiyo dawladdiinee baad ciidan duldhigi doono oo xidhi doono sidii tiidi qabay waan hadlay waan hadli maayo dadkuna meel kulul bay joogaan kolay waa isbarasho iska daba hadli maaye wuxuun baan leeyahay yaan la isdhigana hawl badan baa inoo taalle sacabkaasi iyo idinla gooyin innaga cod bay wax ku doonayaa soo maaha innaga waxaa inoo ah waddani baa inoo ballana ummadda gobolladana baaq baan u jeedinayaa gobolladu gobollada weliba khaas ahaan bariga ee aniga iyo rag badan halkan soo jeeda galbeed meesha wixii loo soo gaadhay hargeysa oo isku hagaagsan tahay gobollada sool iyo sanaag iyo togdheer waxaan leeyahay ballankeennu waa waddani wada hadal wanaagsan oo biiska loo dhigo inaynu la furno ayaynu doonaynaa waxaynu doonaynaa halkan waxaa maqlayseen in guddoomiyaha guurtidu uu lahaa cali khaliif la hadli mayno waa lala hadlayaa cali khaliif halkan buu u dhashay dadkiisaanu wataa waa lala hadlayaa wuu imanayaa may ahayn wuxuu ku hadlay wuxuu guddoomiyuhu ku hadlay ma ahayn wax guddoomiye guurti ku hadlo wuxuu ahaa wax qof shaksiya uu ku hadlay walaalayaal wixii iminka ka bilaabma gurmad baan doonaynaa gurmadka aynu doonayno waannu idinla wadaynaa si fiican baanaanu idin wadaynaa waxaanaannu doonaynaa inaynu innagoo midaysan oo mid keliya ah aynu dalka qabanno natiijo wanaagsanna aynu ku keenno natiijada aynu ku keenno aynu ka beddelno dadkan iska daba hadlaaya ee la odhanaayo reer hebel ka daba hadal waxaa aan odhanayaa horto xisbigii aannu ka tirsanayn maalintaannu ku biiraynay ilaahay qudradiisa guruub baannu ahay sidaa uu xuseen sheegay isbeddeldoon loodhan jiray kii baannu maantana nahay sidaa uu duur sheegay isbeddelkaannu doonayna haddaannu waddana ka arki weyno isna waannu ka diga rogan doonnaa midda labaad xisbigii aannu ka tirsanayn ee la odhan jiray kulmiye waar horta uu dhinto uu inaga hooseeyaa waxaan iska codsanayaa faataxada umara maanta laga bilaabo way bishu tahay 27 waxaanu u soo diga roganay xisbiga waddani
oo aanu ku soo helnay kadib markaanu saxan badan galnay saxankii uu guruubkayga keenay xisbiga waddani oo u aragno inuu yahay xisbigii waddankan isbeddel ku samayn lahaa waad ogtihiin xisbi xaakimkii waxaa galay halkii udub galay baa galay iyo dhanxiirkii markaa beeshaas wax ku haray ma jiraan waa laga soo socdaa wayna daba socdaan intii kalena waxaan dhammaan taageerayaashayda gudaha iyo dibaddaba iyo kuwa halka joogaba aan ugu baaqayaa inaan iskugu soo biyo shubanno xisbiga waddani waa deegaanka bariga ee gobollada dalkeennu waa deegaanka juqraafi ahaan dalka ugu ballaaran waana deegaan laga faafiyey brobagando nabadgelyo darro lagu tilmaamo wax ka jiraa ma jiro dalku waa nabad dalku waa somalilan sidoo kale waxaanu idinku casuumaynaa ciddiina raacisaay garaadkii guud ee gobollada bariga amba beesha axmed garaad deegaanka buuhoodle in la caleemo saarayo halkaana intaa ayaan ku dhaafayaa kelmad baan ku darayaa ah kelmadda gogasha nabadda waxaad ii soo ogaataan halkay taallo ii soo ogaada hadal lays yidhaahdaa ma hadhin annagu shalayna annagaa kulmi ahayn maantana waxaan nahay waddani taageerayaasha waxaan nahay axmed xamarji waan idin garab taaganahay dumar badan oo fadhiya halkan oo iswada qarinayo iyaguba ku soo biiray maalinta dambe hadli doonaan assalaamu calaykum waxaanu nahay maanta laga bilaabo waddani waxaa og tihiin wixii loo soo maray aanu xisbigaa u soo maray waxaanu muddo badan markii aanu hadlaynay muddo badan markaanu sheegay sidkii raggii idin sheegeen waxay annaga maanta nala noqotay inaan ku soo biiro xisbiga waddani caqligu wuxuu ku siinayaa had iyo jeer madaxweynayaasha dimuqraadigaa waxaa la sameeyaa ninka madaxweynihii wuxuu leeyahay awooduu dadka ku magacaabo kulidina maalintay gaadheen isaga in la idhaa duca qabe ayuu idhaa kordhin baan doonaya waa maalinta isaga leeyahay ducaqabadiisu innagaa ducadii siinayna hadday maanta nahay wadan bismillaahi raxmaan raxiim madaxda qaranka ee ka soo digarutay xisbiga kulmiye iyo qorooyinka kale madaxda ee aan kulmiye ku jirjirin ee reer somaliland ku soo biiray xisbiga waddani aad iyo aad baan u soo dhoweyna haddaan nahay waddani waxaan idin leenahay walaalayaal soo dhowaada xisbigan waa xisbi qaran waa xisbigiinnii aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaynaa sida fiican taageerayaashiinnii oo isku dhan aad u soo abaabisheen ee hoolkii aad u soo buuxiseen aad iyo aad baa u mahadsantihin waxaa si farxad leh oo diiran oo qalbi furana ku soo dhoweynaya madaxdii sharafta lahayd ee xisbiga ee go'aansaday inay ku soo biiraan oo caqligooda iyo cudurtooda iyo codkooda iyo waayo aragnimadooda ku soo biiriyaan xisbiga waddani ayaa aad iyo aad ugu mahadnaqaya oo annaga wada garanaysaan oo aynaan u baahnayn magacyadooda ii sheegno waxay soo ahaan jireen madax qaran wasiirro agaasimayaal guud qoransaabo maareeyaal iyo xilal kale bay qarankan soo qabteen si wanaagsanna waa u wada garanaysaan dhammaantoodna waxaan leenahay waa mahadsantihiin iyo taageerayaashoodaba ee ku soo biiray maanta xisbiga waddani waxaan soo xasuustay sheeko berigii dhagax tuurka hargeysa ee 28-kii aan maqlay waa la ysixi doonaa haddii wax qaladi ku jiro waxaa laygu yidhi berigii dhagax tuurka hargeysa ka socday ayaa maxamed siyaad barre wuxuu u yeedhay si abugaanoo reer somaliland oo cali suglo la yidhaahdo dabeedna wuxuu yidhi waxaad tegaysaa hargeysa waxaad la hadlaysaa dhallinyarada gaduudsan ee dhagaxa tuuraysa dabeedna wuxuu ku yidhi cali sugul geed buu hoos fadhiisan dhaxana way ahayd madaxweyne geedka maxaa ruxaya dabeedna wuxuu ku yidhi dabayl dadka dabayl baa ruxaysa buu yidhi anigu ma joojin karo waxaa
waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan dabayshaa uu sheegaya cali sibille wakhtigaa ayaa maanta gashay waxaanay dadku ku soo wada socda xisbiga waddani xisbiga waddani waa xisbi qaran haddii la xamayn jiray waa xisbi mucaarida waa xisbiga rajada somalilan waa xisbiga dhallinyarada waa xisbiga haweenka brobagandada xukuumaddu ka shubto tv-ga qaranka waxay wax u tarta mooye waxba yeeli mayso maanta waxaad ku arkaysaa madax badan oo ka tirsanaan jiray xisbiga kulmiye iyo axsaabtii kale ee ka mid ahayd cudub oo ku soo biiray maanta xisbiga waddani laakiin waxaad dhowaan arki doontaan madaxda xilka haya ee xukuumadda ku jira oo ku soo biiraya xisbiga waddani xisbiga waddani waxa uu gacanta ku hayaa diyaarinayaa barnaamijkiisii siyaasiga ahaa waxaanu insha allah barnaamijkaasi aa xaq u leedihiin dhammaantiin taageerayaashu inaad fikirkiinna ku dartaan waxaana u soo bandhigi doonaa barnaamij u untaba shacbiga reer somalilan waxaanu taageersannahay inaannu dhammaanteen wada taageerno nabadgelyada somalilan ammaanka somalilan ammaanka iyo amniga waxaa ka mas-uula xukuumadda markaa joogta ayaa ka mas-uula sidii la sheegay ciidamada qaybtay doonaan baa ahaadaayne waa adeegayaasha shacbigay u adeegaan hubka waxay u sitaan inay innaga inagu ilaaliyaan hubka uma sitaan in dadka shacbiga aan hubaysnayn ay hubka ku xuraan waxaannu u sheegaynaa ciidamada inay ilaaliyaan xaqa muwaadinka nabadgelyadana ilaaliyaan oo aanay ku furin muwaadinka ay ka mas-uulka ahayn nabadgelyadiisa ee aan hubaysnayn inay hub adeegsadaan waxaa warwar leh oo dhammaanteedina warwargelin karaa in ciidanka qaranku ama ciidanka nabadgelyadu ay xirxiri karaan mudanayaal ka tirsan golayaasha qaranka oo leh xasaanad dastuurku siiyey maxaad u malaynaysaa muwaadinkii aan xasaanadda lahayn dee isqiyaasag waddani waa gurmadka sugitaanka cadaaladda iyo ku dhaqanka sharciga waa badbaadiyaha qaranka insha allahu waxaynu u baahannahay inaynu ciidamada ku tababarro xuquuqda muwaadinka in la tababar ay leeyihiin iyo inay ilaaliyaan sharciga waxay u baahan yihiin ciidanku xukuumadda markaa gacanta ku haysaa inaanay falal ama amarro ka soo hor jeeda sharciga aanay ciidanka amrin oo waxyeelaya nabadgelyada iyo ammaanka shacbiga somalilan wada shaqaynta iyo kala madax bannaanida hay-adaha qaranka waxuu odhan jiray xisbiga kulmiye hay-adaha qaranka kala madax bannaanidooda waannu ilaalinaynaa talow ma ilaaliyaan maanta insha allahu waxaannu ballan qaadaynaa hadduu hoggaanka uu qabto waddani in waaxaha qaranku wada shaqeeyaan kalana madax bannaanaadaan haddii ilaahay ka dhigo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan golaha khilaafka dhexdoodii markii hore waxaan qabaa aan rumaysnahay khilaafka golaha dhex yaallay wuxuu ahaa mid la soo tahriibiyey golahu wuxuu yeeshay fadhi xidhan way iscalool xaaday wixii hore wuu iska tuuray wuxuu ku heshiiyey hadda inuu ummadda u adeego oo dhammaan xeerarka qabyadaana dhammaystiro oo ay ku soo horeeyaan xeerarka doorashooyinka inagu soo socda doorashooyinka mawqifka xisbiga waddani dadku waa ka dharigsan yahay waxa weeyaan in doorashada wakhtigeedii lagu qabto in maalinteedii lagu qabto oo 26 juun
waxaan soo jeedinaynaa in diiwaangelintana la dedejiyo komishankii qaranka insha allahu sabtidaa la ansixinayaa maalmo kadib waxaa bilaabmi doontaa in la gudagalo arrinta diiwaangelinta haddii la gudagalo maxaa ku xiga doorasho muddo kordhin maxaa tirahdeen muddo kordhinta maxaa tirahdeen idin maqli maayo maxaa tirahdeen kaalinta haweenka xisbiga waddani wuxuu aqoonsan yahay doorka muhiimka ah ee haweenku ku leeyihiin dhismaha qaranka cusub iyo tacadiyada isbiirsaday ee ay la kulmaan wuxuu waddani ballan qaadayaa haweenka in xilalka xisbiga iyo kuwa qarankaba waxa ay mudan yihiin ay ka helaan siyaasadda kale xisbiga waxaa ka mid ah hirgelinta koote xaq iyo cadaalad ku dhisan oo la siiyo dumarka iyo qaybaha kale bulshada ee aan awood u lahayn inay soo galaan golayaasha qaranka waxaa loola dagaalamayaa ka mid ah dulmiga bulsheed mid qof iyo mid wadareedba oo ay ka mid yihiin caadooyinka aan diinta iyo islaamnimada midna ku wanaagsaneen wuxuu si gaara u dhiirigelinayaa siyaasadda xisbiga waxaa ka mid ah inuu si gaara u dhiirigeliyo waxbarashada hablaha kaalinta dhallinyarada dhallinyaradu waxay ku leeyihiin xisbiga kaalin muhiima dhismaha xisbiga waa xisbigu dhallinyarada xisbiga waddani waa xisbiga dhallinyaradu ay ku aamineen aayahooda siyaasadda xisbiga waxaa ka mid ah sidii uga shaqayn lahaa xisbigu in dhallinyarada xaqa doorasho ee daada ku xidhan laga kor qaado in la kobciyo waxbarashada gaar ahaan iskuullada farsamada sida loo abuuro xirfado ay ku shaqaysan karaan dhallinyaradu waxa uu samaynayaa xisbigu cadaalad ku salaysan tartan marka shaqo la doonayo waynu tartansiinayna dhallinyarada u kala leexan mayno waxaan xisbigu qorshe ka samayn doonaa tahriibta haddii ay ka dhigo waxa kale oo uu xisbigu ka warhayn doonaa waalidiinta dhibaatada ka soo gaadhay carruurtooda soo gaadhay tahriibta ee badaha ku dhammaaday dhaqaalaha dadka reer somalilan waxay caan ku yihiin inay yihiin dad iskood u shaqaysta oo ganacsigana ku caan siyaasadda xisbiga waxa weeye in la dhiirigeliyo maalgashiga muwaadiniinta iyo ka shisheeyahaba lana fududeeyo dhammaan shuruucda maalgashiga lagana hor qaado caqabado kasta oo hor yaalla in waddanka la maalgashado waxaa ka warqabtaa shirkado badan oo waddanka yimaada oo dhibaato kala kulma oo ka noqda xidhiidhka caalamiga ah xisbiga waddani wuxuu xidhiir wanaagsan la leeyahay dhammaan daneeyayaasha somalilan gaar ahaan dalalka aynu jaarka nahay xisbiga waddani wuxuu kala shaqaynayaa dalalka iyo daneeyayaashaba in la ilaaliyo magaca somalilan ee wanaagsan ay ku heshay xorriyadda saxaafadda xuquuqul insaanka iyo doorashooyin laakiin maanta maxaa ku dhacay xorriyaddii saxaafadda ma jirtaa xuquuqul insaankii ma la dhowraa waxaanu jecelnahay inay magacaa wanaagsan soo celinno xukuumaddana waxaanu soo jeedinaynaa inay caburinta iyo xadhigga joogtada ah ka dayso saxaafadda waxaanu si adag u cambaaraynaynaa xadhiggii dhallinyarada halka xalag kaga tashanaysa aayahooda la xidhay iyo kii guddoomiyahooda ka horreeyeyba waxaanu ugu baaqaynaa in xorriyaddooda si dhaqsan loogu soo geliyo
waanu kaloo cambaaraynaynaa dhammaan gafafka iyo tacaddiga loo geystay saxaafadda waxaanu codsanaynaa hadday jiraan cid ku baaqaya saxafiyiinta in xorriyaddooda loo soo celiyo waxaanu kaloo ugu baaqaynaa xukuumadda inay soo dayso sarkaal ka tirsan xisbiga waddani oo ah xogayaha xanaanada xoolaha mudane xasan goodaad oo 8 wiil ka badan hadda u xidhan maxkamadna aan la horkeenin dembina aan lagu cadaynin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga iyo taageerayaasha reer somalilan ee xafladda ka soo qayb galay waxaan soo dhowaynayaa dhammaan mudanayaasha iyo hablahaba ku soo biiray xisbiga waddani waxaanu u sheegaynaa dhammaan shacbiga reer somalilan waxaanu wada gallay heshiis ah in qarankan la wada badbaadiyo waxaanay ka mid noqon doonaan mas-uuliyiinta soo gashay maanta hoggaanka golaha dhexe iyo guddiga fudinta iyo xilal kale way ka qaban doonaan haddii ilaahay ka dhigo xisbiga waddani sidii xamarki sheegayna hawsha inta badan waa hagaag daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa een idiga diyaarinay xisbiga mucaaradka ee waddani oo maanta munaasabad aad u ballaadhan u sameeyey siyaasiyiin xilal uga soo qabtay xukuumaddan haata talada haysa barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cargo and passenger flights. Hajj and Umrah packages. Excellent service and affordable fare. Juba Airways, the happy way to fly. waxaa dhammaan baa bulshooyinka Soomaalida la socodsiinaya in Euro Africa Travel ay kaaga furtay xafiis cusub magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaasoo ku qaabilsan guud ahaanba u fududeynta duulimaadada dunida in ka badan 70 shirkadooda yuuradooda ayaad kala kulmaysaa sida Emirates, British Airways iyo waliba dayuurada kale waxaa intaasi dheer in xafiiska Nairobi uu ku fududeynayo fiisooyinka wadamo ay kamid yihiin China, South Africa, Turkiga iyo meelo badan oo dunida kamid ah dadka doonaya dalka oo inay booqdaan Euro Africa Travel waxay ugu tala gashay shirkadaha dayuuradaha Africa Express, Dalo iyo waliba Juba Airways yaan la moogaan xafiisyada kala duwan ee Euro Africa Travel ee London ku yaala iyo waliba Euro Africa Travel oo noqotay inay ku guuleysato kaalinta koobaad oo ah wakiilnimada shirkadda Turkish Airlines ee wadanka England meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan Euro Africa Travel waxaa dhammaan baa bulshooyinka Soomaalida la socodsiinaya meel kastoo ay joogaanba in shirkadda caalamiga ah ee tikidhada iyo duulimaadka Travel Express ee fadhigeedu yahay magaalada London isla markaasina xibinka hay'adaha caalamiga ah IATA iyo ATAL ugu tala gashay bulshooyinka Soomaaliyeed inay u diyaariso safarro tikidhadooda ay aad u jaban yihiin dhammaan dunida dacaladeeda waxa ay dadka geeyaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo waliba goobo kale ay kamid yihiin wadamada Turkiga, Tunisia, Morocco iyo istaga Imaaraadka Carabta haddaad shakhsi tahay qoysaska kala duwan xilliyada fasaxyada iyadoo Turkiga oo kale lagu tagayo qofkiiba lacag ka bilaabata 199 geni wixii faahfaahina Travel Express iyo teleefanadeeda iyo shaashada Juba Express bulshada xawaaladuhu ilaa waa kala jaada qaar baad ku jabtaayo jikaar badnidooda jiniidiin engegtaayo kun jeer noqnoqotaaye halkuu dad jeclaystay dhammaan u jarmaaday waa Juba Express baleeg jajabnaanta hufnaanta adeega shaqaalaha jooga xawaalada Juba Express waxaad jaminaysay judhiiba oo dhiibka judhiiba ka qaadka lacagta isku jaada jeebad ku xaraynta jawiga farxadaada Juba ka heshaaye marna ha muugaanin Juba Express oo looga bartay adeeg hufan degdegsiyo iyo amaano sheekada joojiyo jeegaba hadda aan soo diray dunideenu joognay Juba aan ka tahayo jihadaadii tilmaantay baan Jamaal soo raacayo Juba lacagtii ku shubay xarunta dhexe ee xawaalada Juba Express waxay ka shaqeysaa dhammaanba dalalka caalamka ha moogaanin xawaalada Juba Express منطقة aynu ku noolhay shirkadda ugu mug weyn magaceedu ku baahay dadkuna ay mahadsheen macmiil waa Telesom ayaa ku samaysay qiimo dhimis aad u weyn oo xagga internet